mas-uuliyiinta inagala jooga shirkadaha brifadka odayaasha waalidka dhallinyarada maanta faraxsan ee la siinayo aqoonsigii aqoontay barteen ay ku shaqo tegi lahaayeen waalidka hooyooyinkai halkaa fadhiya ee ku soo tabcay dhallinyarada dhammaantan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. markii maamulaha iskuulku uu cilaaminayay ardayda ka qalin jabisay dugsigan farsamada gacanta wuxuu sheegay 120 arday inay ka kooban yihiin 120ka ardayba inay yihiin wiilal. jaamacadaheennana marka ay qalin jabinayaan waxaa badan hablaha. waxaan isweydiiyey maxaa halkan inamada ku badiyey jaamacadahana hablaha ku badiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markuu cilmiga ka hadlayay sida loo raadsado wax isweydiiya buu yidhi. hareerihiinna waxaa ka dhacaya isweydiiya, indhihiinna waxaad ku aragtaan isweydiiya. miydaan fakerayn buu in badan ilaahay qur-aanka inoogu sheegay. inamadu jaamacadihii way ka soo qaxeen, iskaga yimaadeen bilxaqiiqati. waxay iminka xiisaynayaan iskuullada farsamada gacanta. sababta ay uga yimaadeen maxay tahay? sababtay uga yimaadeen waxay tahay ballanqaadkii ahaa qofku marka uu dugsiga sare ka baxo ee uu jaamacadda galo waxuu helayaa aqoon uu ku shaqo tago. ballanqaadkaas oo ay samaysay wasaaradda waxbarashada iyo dowladda somalilan uu beenoobay. ardaydii reer somalilan markii ay jaamacadaha ka baxeen intoodii ugu badnayd waa bilaa camal. ballankaa markaa ardaydii waa lagu furay, yaa lagula xisaabtamaya. dhallinyaro meel aad joogtaanba sanad walba doorashaa dhacda, madaxdaydii kaa doorta. waxaad u abaabulantihiin qaab qabyaaladeed, uma abaabulidin qaab danihiinna ka hadlaya. ilaa iyo intaad fikri doontaan ad wax isweydiin doontaan nolosheennu saasay ahaanaysaa. ku aarsada maalinta aad codka haysataan. farsamada gacanta waa dariiq dhow 6 bilood 8 bilood ayuu qofku ku helayaa aqoon uu ku shaqo tago ama xirfad uu ku shaqo tago. waa dariiq dhow. haddii waxbarashada ujeedkeedu ahaa in lacag lagu helo waad ku heli doontaan farsamada gacanta insha allahu tacaala. haddeertooynan ardayda ka midaba halkan ka xusay dowladda hoose magaalada burco dee dhallinyaradiinni waxbaanu soo barannay. hadal ma baahnin imise arday baad qaadan doontaa. maayar ku-xigeenkeennina u joogaa halkaa waxaa fadhiya mustafa khalaf oo ka soo jeeda dadyowgii talaqabeenka ahaa ee deegaanka caanka ka ahaa. kelmad buu igu yidhi haddeerto wuxuu ku yidhi telesom ama agtayda laguma qabo. anna waxaan idin leeyahay dowladda hoose ku qadi maysaan insha allahu tacaala. laakiin haddii aanu ujeedku lacag ahayn aad wax u baranaysaa. nin article baan haddeerta halkan ka soo qaatay qoray 25 sannadood ka hor oo qoray nin maraykan ahaa Earl Shores baa la odhan jiray. Earl Shores wuxuu ka hadlayaa saboolnimada ama shaqo la'aanta ama bafartiga maxaa lagaga bixi karaa. haddaad aaminsantihiin qofku inuu lacag marka uu helo inuu ka baxayo waxyaabaha uu ka cararayo maanuu ma aaminsanin, qoraalkaasina ma aaminsanin. waayo haddaad iminka xabsiyada eegtid ama dadka aad eegtid somehow si uu nolosha uga dhacay lacag la'aani kama ridin. inamada farsamada gacanta ku shaqeeya ee tusaale ahaan makaaniga ah somalilan guud ahaan maalintii lacag dhaqaale fiican bay sameeyaan. lacag badan baa soo gasha. isku wada daro dadka farsamada gacanta ku shaqeysta lacag fiican baa soo gasha. waa haddii mushkiladdu lacag tahay unte haddana lacagta way burburiyaan. gabolku markuu dhacaa bay burburiyaan. waddamada africa ama dadkeena madmadow waxyaabaha intooda badan lagu dhalilo waxaa ka mid ah wiig bay nool yihiin. sabtiday nolosha waxay bilaabaan isniinta ilaa jimcahay shaqaysanayaan. toddobaadkaa wixii uu shaqaystay sabtida iyo axaddu burburinaya. dam
farsamada gacanta dadka bartayna waxay caan ku yihiin maanta wixii ay shaqaysteen gabolkuma ku dhacaa bay burburinayaan laxa jeclayaasha wax dhigta meel tomorrow ka fikira haddaba artikalka haddaan in yar idinku noqdo aan hadalkayga ku soo gabagabayo ninkaasi wuxuu leeyahay waxaa faqriga ama hanyaraanta lagaga baxayaa aqoonta leh liberal education marka wuxuu qoray article on the uses of liberal education as a weapon in the hands of the restless poor humanities ama liberal education waxa weeye cilmiyo waalidkiinu aanu marnaba idinku dhiirigelinayn inaad barataan waayo waalidka iyaga waxa uu daro nolosha waxaa ka mid ah tusaale ahaan afafka inaad barataan waalidkaa marnaba ka oran maayo jaamacad galooda ingiriisi soo baro oo kula yaabaya laakiin haddaad ingiriisida barataan oo keligeed aad fahantaan noloshaad fahmi doontaan xeerarkeedaad fahmi doontaan khaladaadkiinaa yaraan doona haddaad taariikhda barataan dunida waalidkiinu idinku dhiirigelin maayo taariikhda barta injineer barta buu idin oranaya ama farsamada gacanta barta marar badan waalidku mar walba ma saxsana haddaad historyga barataan dunidu sida u taal waalidkiinana wax baad tari doontaan noloshiinana wax baad ka bedeli doontaan khudbad arday soomaaliyeed loo jeediyo ama jaamacad ka baxaan ama dugsi farsamo gacan ha ka baxeen waxaan u malaynayaa tii ugu wanaagsanayd allaha u naxariistay abwaankeennii sooraan ayaa jeediyey waxay ahayd annagu meelaan idin geyne ma hayne annagaaba tegi lahayne idinku meelina geeya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu